السلام عليكم مركل واحد كسر دواتان مقال كذا نبي صلى الله عليه وسلم حديث وحق كل يهي لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ومعنى هذا يهي عمل والباء شقو والباء وحقبض والباء performance والباء وحإليهن في الفرعوني نشاط حيصو حماسو نشاط firfircooni walbana waxa ay leeyihiin daal hoos u dhac iyo cajsi xadiidkan waxaan ka fahmaynaa camalka iyo waxa la yiraahdo performance-ga in ay leeyihiin graafkaas marna kor ayuu aadayaa marna hoos ayuu u dhacayaa haddana waxaa laga yaabaa kor inuu aado haddana hoos inuu u soo dhaco su-aasha marka isweydiinta mudan waxa weeyaan sidee camalkaaga waxqabadkaaga shaqadaada performance-gaaga marka ay hoos u dhacaan kor ugu soo qaadi kartaa Henry Cloud buuggiisa The Power of the Other waxa uu ku soo bandhigayaa laba qodob oo qofku haddii uu sameeyo u fududeynaysa in camalkiisa ama shaqadiisa kor u soo qaado performance-giisii kor inuu noqdo kow waxa uu leeyahay qofka waxa fiican in uu helo new energy tamar cusub haddii uu dareemo waxqabadkiisii hoos u dhac in ay ku yimaadeen new energy maxaa laga wadaa sidee loo helaa yaa laga helaa waa ka sheekeynaynaa sidoo kalena waxa uu leeyahay qofka waxaa habboon in uu helo ama in uu raadiyo new intelligence xoog cusub information hor leh iyo macluumaad cusub yaa laga helaa sidee loo helaa xaggee laga helaa iyadana waan ka sheekeynaynaa Henry Cloud waxa uu xoogga saarayaa qofku in ay fiican tahay xiriir wanaagsan in uu la samaysto dadka wanaagsan marka aad la samaysatid xiriir wanaagsan dadka wanaagsan waxay ku siinayaan dhiirigelin waxay ku siinayaan tamar cusub way ku riixayaan way ku bushgareynayaan waxay ku gaarsiinayaan in aad heli karto waxaad adigu raadinaysay tamarta cusub iyo new energy saas ayaa laga wadaa new intelligence waxa laga wadaa dadka wanaagsan xiriir wanaagsan marka aad la samaysatid waxay ku siinayaan aragti cusub waxay ku siinayaan afkaar cusub aqligaaga ayay bedeli karaan waxa laga yaabaa perspective-kaaga oo markii hore laga yaabay si kale inaad u fakaraysay ama direction kale jiho kale inaad u socotid ama direction kale ama jiho kale inaad u socotay ay ku soo leexshaan ay dhinac kale ay ka tusiyaan marka new information markaad heshid oo macluumaad iyo xog cusub aad heshid sidii markii hore aad u fakaraysay aqligii markii hore aad haysay aragtidii iyo afkaartii markii hore maskaxdaada iyo qalbigaaga ku jiray waxa laga yaabaa inaad iska tuurtid oo markaas wadada saxda ah iyo directionka saxsan aad qaadatid Henry Cloud waxa uu xoogga saarayaa in xiriir wanaagsan la dhiso xiriirkaas wanaagsanna uu noqdo kii saxda ahaa kii adiga aad ku horumaraysay mid caafimaad qaba haddii aan ku soo noqonno xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam likulli amalin shirrah wa likulli shirratin fatrah waxa uu noo sheegayaa xadiidkaas in camalkeena iyo waxqabadkeena iyo performance-geena graafkii aan soo sheegnay oo kale uu yahay mar walbana loo baahan yahay in aynu ka fakarno sidii camalka kor aan ugu soo qaadi lahayn daalkaas iyo cajisigaas iyo hoos u dhacaasna aan ula dagaalami lahayn waxaan jeclahay muuqaalkan inaad wax ka faa'iideen muuqaalkan dadka kale la wadaaga dadka kale gaarsiiya wixii su'aal ah ama falanqeyn ah ama commenti ah waa xaggeena khayr badan baa idin rajeynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته